بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka waxaan kasii wadi doonaa casharadeenii aynu ku baranaynay xirfadda graphic design-ka gaar ahaan software-ka Photoshop-ka marka cashirkeena maanta haddii Ilaahay yiraahdo waxaynu ku baran doonaa sida loo abuuro dukumeenti cusub ilaa waxaan arki doonaa saddex qaab oo dukumeenti cusub loo abuuro marka u horeysa aynu software-ka soo furano shaashadan hore ee recents-ka ama waxyaabihii aynu dhawaanahan qabanay inaga soo horbaxaan marka u horeysa qaabka koowaad ee markaynu samaynayno ama abuurayno dukumeenti cusub aynu samaynayna waxa weeye halkan waxaad u jeedaa inay kugu qoran tahay new file halkan new file-ka haddaad ku dhufato dialog box ama shaashad cusub ayaa kuu soo bixi doonta oo noocan oo kale qaabkaas waa qaabka koowaad halkaas marka new file-ka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu kuu soo dhigo create new file ama create new inuu ku dhaha laga yaabaa labaduba waa isku mid new file hadduu ku yiraahdo iyo create new hadduu ku yiraahdo labaduba waa isku midkii marka midka doorataba dukumeenti cusub aad abuuraysaa bay ka dhigan tahay marka qaabkaasi waa qaabka koowaad ee markaynu dukumeenti cusub abuurayno aynu samaynayno qaabka labaad markaynu dukumeenti cusub aynu abuurayno aan samaynayna waxa weeye intaynu file aadno inaan kasii dooranno new markaynu ka dooranno isla shaashadii tii oo kale ayaa inoo soo bixi doonta iyadana sidoo kale haddii mar kale aan ku laabto file intaan aado ayaa new oran kadib isla sidoo kale waa ujeedaa qaabkaasi waa qaabka labaad isaguna aad samayn karto markaad dukumeenti cusub ama project cusub aad abuurayso marka qaabka koowaad waa inaad new file ama create walba wuxuu kuu soo saaraa dhahdi qaabka labaad waa inaad file intaad tagto aad new dhahdo qaabka saddexaad oo kale isaguna aan samaynaynahay waa inaan shortcut isticmaalno badanaana shortcutsku aad iyo aad bay muhiim yihiin iyagana sidoo kale inaad isticmaalkooda ku dadaashaan isku day hadduu Ilaahay yiraahdo waayo mar walba waqtigii bay kuu soo koobayaan aad ku bixin lahayd shaygaas inaad soo raadiso marka qaabka saddexaad aynu dukumeenti abuurayna shortcut-ka aynu isticmaalayna waa control+n haddaan dhahno isla shaashadii oo kale ay inoo soo bixi doonta iyadana sidoo kale marka dukumeenti cusub la abuurayo saddexdaa qaab ayaynu mari doonaa inaynu aadno new file labo inaynu file aadno oo new kasii dooranno saddex inaan shortcut isticmaalno oo control+n ah saddexdaa qaab hadda qaybtii shortcut-kaad baynu isticmaalna control+ marka shaashadan ay noo soo baxdo shaashadan way shaashada laynaga raba inaan si professional aan u buuxbuuxino marka hore inteena buuxbuuxin aanu fahanay shaashadani waxay ka kooban tahay halkan oo kale recentska waxyaabihii cabiradii dhawaanahan aad samaysay ayaa kuu soo geli doona oo mar walba waxa aad samayso halkan bay kuu soo geli doonaa qaybka labaad oo kale saved-ka ah isagana waxaa kuu soo geli doonaa cabirada adiga aad save garaysatay ayaa iyagana halkan kuu soo geli doonaa cabiro aad save garaysatay qaabka loo save garaystan waa arki doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin cabirada aad save garaysatay halkan bay kuu soo geli doonaan saved-ka halkan oo kale photoska cabiradii sawirada ayaa halkan iyagana kuu soo geli doona landscape oo cabiradoodii kala duwan hadday yihiin defaults-ga waa halkan baad iyagana aad ku arki doontaa halkan baad view all hadaad dhahdo waad arki kartaa portrait-kii oo iyo landscape-kii cabiradoodu kala duwan yihiin baad halkan ka arki kartaa halkan oo kale print-ga waxaa kuu soo geli doona isaga cabirada waxyaabaha la daabaco ayaa kuu soo geli doona badanaa warqadaha iyo waxyaabahaas oo hadaad inka tusaale oo kale view all aan dhahno waad ujeedaa A4 A6 A5 A3 B5 B4 B3 C4 waxyaabahaas oo dhan waa warqadaha printiga ama cabirka gala iyagana sidoo kale cabiradoodu intaad raadin lahayd halkan bay preset ku yihiin oo lagu soo diyaariyay ood ka raadsan kartaa art and illustrations iyo waxyaabaha iyagu sawirada iyo waxyaabahaas gala weeye iyagana halkan baad cabiradooda ka soo dooran doontaa webka oo kale haddaad website aad design garayn rabto website-ka shaashadiisii cabirkeedii iyo waxyaabahaas oo dhan halkan baa laga soo doortaa hadduu Mac yahay ama hadduu Windows yahay waxa dhan ba halkan baa laga soo doortaa midka ugu caansanna waa 1920 1080 weeye websites-ka lagu design garay halkan oo kale waxaa kaaga soo bixi doona cabiradii mobiladu ay lahaayeen haddaad mobile markaas aad design garayn rabto user interface-kii oo kale waxyaabihii ama UI UX design-ka qaybahaas badanka aad loogu bartaa marka iyadana sidoo kale cabirka mobilka halkan baad iyadana kasoo dooran doontaa hadduu wax walba yahay Android ama iPhone ama tablet ama Apple Watch dhammaan xataa wixii oo dhan cabiradoodii halkan baad ku arki doontaa qaybta ugu dambaysa oo kale waa film and video baa kaaga soo bixi doona iyagana sidoo kale waa waxyaabihii marka muuqaalada cabiradoodii loo samayn rabo thumbnail hadduu 4K ama HD full HD waxaas oo dhan uu yahay iyagana sidoo kale halkan baad ka soo dooran doontaa iyadana cabiradooda marka qaybahani waa cabiro preset ah cabirada guud ahaan saddex qaybood baa loo qaybiyaa qaybta koowaadi waa cabiro standard ah oo aadan u baahnayn inaad raadiso oo macnaha iyagu already standard ah oo halkan ka soo dooranayso kale meelahan bay kugu jiraan kuwa standard aan sheegayno tusaale kale A4 hadaan u baahdo in cabirkeeda A4 inaan meel kale ka raadiyo ma rabay cabirkeeda halkaas automatically halkaas aan ka soo dooran doona
waayo waa preset weye, waa standard, waa mid lasoo sameeyey weye, iyada inaad meelo kale u raadiso uma baahnid. marka qaybta koowaad waa cabiro standard ah oo aadan u baahnayn inaad raadiso oo preset oo lasoo diyaariyey. qaybta labaadi waa cabiro standard ah iyaguna sidoo kale, laakiinse halkan aan ku diyaarsanayn oo lagaa raba inaad soo raadiso kale. tusaale kale ID cardka, business cardka, roll up bannerka, waxyaabahaas oo dhani cabiradoodu waa standard oo cabiro lagu sameeyo ay leeyihiin, laakiinse halkan kuma aha preset oo laguma soo diyaarin. marka iyaga sidoo kale Google-ka ama meel aad wax ka raadinayso waad ka u doonan doontaa, waad ka soo raadin doontaa cabiradaasi, iyaga laftoodu waa standard laakiinse halkan kuma diyaarsana. qaybta saddexaadi waa cabiro iyagu custom ah oo adigu markaas aad samaysanayso ama aad diyaarsanayso. marka cabirada customka ah baynu qaabka loo diyaarsado aynu arki doonaa. haddii aad u baahan tahay cabirada standardiga ama presetka lasoo diyaariy iyagu halkan baad automatic kasoo dooran, laakiin haddii aad u baahato cabiro customa inaad samaysato meeshii aad ka buuxbuuxin lahayd waatan cabirada customka. marka halkan oo kale ugu horeysa waxaad ku qoran doontaa documentigaaga ama projectiga aad ka shaqaynayso magaciisa ayaad halkan ku qori doontaa. tusaale kale haddaynu dhahno poster design oo kale haddaynu dhahno, hadda halkan inuu posterka cabirkiisu waa preset standard weeye, uma baahnid inaad raadiso. halkan baad cabirkiisa kasoo dooran doontaa 1080 oo widthka iyo 1080 oo heightka, waa square weye. marka haddii imika posterkan halkan oo kale poster designku waa cabirkiisu waa 1080 iyo 1080 oo dherer iyo balac labadaba square weye. marka halkan oo kale haddaan soo furo waa halbeegii documentiga ama projectiga markaas aan ka shaqeynayo. documentiga aan ka shaqeynayno hadda poster designkani cabirkiisa waxaan dhahnaa waa 1080 iyo 1080, laakiinse waxaa muhiima halbeegiisu muxuu yahay. halbeega inaan iska saxno marka hore intaynan cabir gelin. hadda imika anigoo qoraalka cabirka sidaan u saxday, posterka halbeegiisu waa pixel caadi ahaan saan naqaano, laakiin u fiirsa maxaa dhacay meeshii cabirkii aan gashtay wax kaloo isku bedelay dhammaantii. sababtu maxay tahay, markii horaan cabirka soo gashtay meeshan aniga oon iska sixin unitka ama halbeega markaas aan rabo inaan ka dhigo projectigan ama documentigan aan samaynayo. marka mar walba ku dadaal inta aadan cabir meeshan gelinin waxa aad samayn rabta halbeegiisu muxuu yahay, pixel, inch, centimeter, millimeter, points, picas midkuu yahay. badanaana waxyaabaha waaweyn loo isticmaalaa centimeterska maadaama uusan mitir haddaan ku jirin, centimeterka halkiisa la isticmaalaya. incheska iyo pixelska iyagana sidoo kale aad baa loo isticmaalaa kuwaas. marka halkan waa cabirkii chiefka ama balaca documentigaaga, halkan heightkana sidoo kale iyadana waa dhererka documentigaaga marka aad rabto. halkaana waa halbeega ayaad kasoo dooranaysaa baynu dhahan. halkan oo kale orientationka isaga waxaa ku qoran documentiga aad rabto ma joog baad rabtaa mise chief. portrait haddaad rabto halkan baad dooran. haddii aad orientationkiisa aad rabto inaad ka dhigtay landscape-na halkan baad dooranaysaa iyadana. marka chief buu noqonaya hadda maadaama hadda ay isleeg yihiin cabirku balarka iyo dhererku maadaama isla yihiin hadda waxba ma noqonayo square maadaama yihiin hadda xaggan igama yeelayo. laakiin haddii aan kan wax ka bedelo automatically hadda wuu isbedelayaa cabirku maadaama uusan isla ekayn. marka halkaasina waa orientationka documentiga aad rabto inaad samayso joog iyo chief markaad u baahan tahay. halkan resolutionka waxaynu gelin doonaa documentigeena tayadiisa ama qualitygiisa markaynu rabno ayaynu halkan cabir tiro gashan doonaa. marka badanaa default ahaan 72 ayuu ku yimaadaa, laakiin mar walba waxa aad samaynaysaa uu wax weyn hadduu yahay oo documentigiisa saaskiisa uu cabirkiisu weyn yahay. tusaale kale hadda halkan haddaan ka doorano centimeter waxaan rabnaa inaan samayno 300, xaggan 300 aan ka dhigno, halkana 100 aan ka dhigno dhererka. marka cabirkan hadda iminka aan gashtay waa 300 oo balaca iyo 100 dhererka ah. marka documentigan iminka waa board 3 mitir oo chief ah iyo 1 mitir oo dherer ah. marka haddii halkan aan 300 ka dhigo kale maxaa dhacaya, 300 haddaan ka dhigayo kale hadda boardkan aan samaynayo qualitygiisa ama tayadiisu aad bay u wanaagsanaan doontaa, laakiinse laptopkayga ama markaan save gareyn rabo ayaa laga yaabaa inuu waxoogaa culaysi wax ku furo. marka mar walba hadda waxaad samaynaysaa hadduu weyn yahay 72 ugu badnaan 150 inaad ka dhigto isku day oo mar walba yaraysid. halkan oo kale waxaan ka dooran doonaa color mode-ka shaygan aan rabno. color mode-ka marka waxay kolba ku xidhan tahay shaygan waxaad u rabto. lababa ugu caansan color mode-kan, RGB color-kan iyo CMYK, labadaas ugu caansan oo badan kala isticmaala. marka labadaas laftigoodu si aan u kala fahanno
haddii shaygan aad u baahan tahay aad samaynayso ama aad naqshadaynayso in screen uun kasoo muuqdo oo screen uun laga arko waxaad mar walba isticmaali doontaa RGB color tusaale kale imika haddaynu webka aadno oo website baynu rabnaa inaan design garayno marka haddii halkan aan doorto wax kale igama yeelayba sababtu waxay tahay website-ku shaashad unbaa lagu arkaayo website-ka lama daawaco oo isaga daabacad ma gelayo marka haddii hadda tusaale kale aan halkan ka doorto A4 tusaale kale waa ujeedaa wiiga yeelaya iyada waayo labadiiba waan samayn karnaa A4ta preview ahaan oo shaashadna waa lagu fiirsan karaa daabacad ahaanna way usoo bixi kartaa marka color modeskana labadaas baa ugu caansan oo inaad kala fahansan tahay lagaa rabaa haddii waxaan la daawacayo CMYK ka dhig haddii waxaan aan la daawacaynin oo preview keliya loo rabana RGB color ka dhig halkan backgroundka isaga default ahaan cadaan buu iskaga yimaadaa marka isaga halkaas waxba ka bedeli mayno marka intaas sidaa usoo buuxbuuxiso hadda maadaama magaca ka dhigay poster design waa inaan hadda posterka cabirkiisii saxda ah aan gelinaa meeshan oo aan ka dhignaa 1080 oo xaggan square ah 1080 marka hadda halkanna maadaama uu iska yaryahay isagu waxoogaa mar walba 300 iskaga dayso wixii hadduu yaryahay cabirkiisu waxba inaad sii yarayso lagama rabo oo siduusan documentigaaga tayadiisu aysan hoos ugu dhicin marka hadda cabirkaygii waan saxday poster designka cabirkiisa waan saxnay marka mar walba oo aan poster samayn rabno ama aan naqshadeyn rabno ma inaan sidan samayno oo halkan cabirka gelino maxay kan aan samayno mar walba sidan miya marka mise cabirkan si aynaan mar dambe u gelgelin meeshan maadaama uusan preset ahayn uusan xaggan ku kaydsanayn waynu kaydsan karnaa innagaa presetka ku dari karnaa oo halkaas saferka maadaama aan hore usoo sheegnay wixii aad soo save garaysato halkaasay mar walba kuusoo geli doonaan waa innagii soo dhahnay marka waxaan samayn doonaa qaabka loo save gareeyo inaan aadno marka waxaan samayn doonaa inaan aragno qaabka loo save gareeyo cabir markaas standard ah laakiinse aan preset ku ahayn barnaamijka ama softwareka oo tusaale kale uu ka mid yahay hadda posterka cabirkiisu mar walba oo loo isticmaalayo social media mar walba waa 1080 square marka waxaan samayn doonaa halkaas calaamadda yarta baynu aadi doonaa markaynu calaamaddaas ku dhufano marka magacaan cabirkan leh muxuu yahay marka maadaama uu poster uu yahay halkan baynu poster ku qoranaynaa poster hadaa wuxuu ii diidan yahay wax kale maaha mar hore already buu iisii save garaysnaa marka sidaasuu ii diidan yahay waxoogaa adiga marka laakiin waxba kuma diidaya markii u horreysay ay tahay marka aan iska cancelno laakiin qaabkaasaad u save garayn doontaa marka hadda saferka maadaama sababta u diidana waxay tahay halkan buu ku jiraa oo aan mar hore kusoo save gareeyay marka wakaas waa 1080 posterka cabirkiisu mar walba poster samaynayso isagaa unbaad soo dooran marka cabirka magaca unbaad halkaa ka bedeli wax kale ka bedeli maysid marka aynu intaa soo dhamaystirno halkan aynu create odhanaynaa kadib waxaa inoo soo bixi doonta shaashadayni marka qaabkan cabirka ayuu usoo bixi doonaa poster designku marka mar walba ood documenti abuurayso qaabkaasaad mari doontaa waxaynu soo sheegnay 3 qaab oo kala duwan inaad marka documenti la abuurayo lasoo maro qaabka koowaad inaad file dhahdo qaabka labaad inaad menuga aad file ka aado kadib new aad dhahdo qaabka saddexaad oo shortcut aynu isticmaalaynay inaad Ctrl+N aad isticmaashid kadib aad cabirada si professional aad usoo buuxisid shaashadii kusoo baxaysa marka aad documentiga abuuraysid